ku soo dhowaada nabadjire podcast. ujeeddada podcastan waa in la falaqeeyo arrimaha khuseeya bulshada Soomaaliyeed sida nabadda, wacyigelinta, maamul wanaagga, suugaanta, horumarka. waxaan martigelinaynaa khuburo, hogaamiyeyaal, aqoon-yahano, suxufiyiin iyo dadka saamaynta leh si aan gacan uga geysanno fahamka xaaladaha jira iyo wanaajinta bulshada Soomaaliyeed. xilligii madaxweyne cabdi maxamed cumar waxaa jirtay aragti deegaanku qaatay oo ahayd nidaamka xoolo dhaqato beeraleyda. wuxuu ahaa wax la yidhaahdo dadkii in la yar dejiyo oo geedigii awal iyagoo beerta qodanaya xooluhu way iska guuri jireen, beertiina dad baa u hadhaya, xoolihiina dad baa u raacaya. nidaamku nidaam ahaan awal lagu jiray, haddana wuu sii xoogeystay. haddana waxaan soo initiative waxaan waayaan wadnay la yidhaahdo dhaqa oo dheefso iyo dalag iyo daryeel oo labadaba lagu xoojinayo, midna xagga dalagga beeraha, midna lagu xoojinayo xagga xoolaha. inuu marka saldhig deganaanshuhu uu kordho oo mobilitigii ama geedigii uu yaraado, markaas socodkii uu yaraaday. ta kale dadka laftiisii dhaqaalahoodii. waxaan xusuustaa almost dhowr iyo 10 sano ka hor xilligii madaxweyne cabdi maxamed cumar waxaa jirtay aragti deegaanku qaatay oo ahayd nidaamka xoolo dhaqato beeraleyda. inagu berigii hore Soomaalideena waxaan ahaan jirnay dabcan xoolo dhaqato iyo beeraley. waxa weeye waa adkeyd nin xoolo iyo beero cid mataqaanaa meel ku wada haysta. marka aragtidaas dabcan xoogaal baad u ahayd deegaanka iyo waxa weeyaan processkii nidaamkaasu marayay, bal sida ay ku bilaabatay, sida ay mataqaanaa jidka ay martay iyo sida ay ula falgashay habdhaqankii Soomaalida, arrintaas ka warbixin. horta nidaamkan xoolo dhaqato beeraleyda macnii dhulka Soomaalida oo dhan yuuna ka jirin, laakiin wuu ka jiray aagaas Jigjige iyo dhulka qaarka wuu ka jiray. macnaheedu wax kale ma aha, waa qofkii inuu beer noqoto, xilliga roob gudoo, xoolana dhaqdo. magacan waxaa laga yaabaa ifbixiisa uu soo ifbaxay inay keentay uun ereygii agrobastoralka la dhihi jiray unbaa af Soomaaligiisa waagaa telefishinadii iyo wax soo yargalay ma ogiye. markii hore wuxuu iska ahaa, horta waa nidaam ahaan iska jiray. markii laga hadlayo dadka qaab dhaqanka bulshadeena Soomaalida, gaar ahaan kuwa hadda dhulkeenaas deegaankaas oo kale, waa qaarkood waa xoolo dhaqato gebi ahaanba, xoolo mooyaan wax kale aan shaqo ku lahayn. qaarkoodna waa beeraley, inta badanna u badan Jigjiga agagaarkeeda iyo wixii ka sarreeya iyo Baabili iyo dhulka Gursumiyo. xoolaha beerahan bay qotaan, neef loo 2 saac 3 waxa way iska haystaan. waxaas waa dad degan. markaa nidaam marka waxaa jira isku dhaf oo xoolo dhaqato beeraley ah, marka labadiiba way isku isticmaalaan. marka nidaamkaas waa nidaam jira, horena wuu u jiray, haddana wuu sii jiraa. beriga waxaan u malaynayaa magaca wuxuu ahaa wax la yidhaahdo dadkii in la yar dejiyo oo geedigii awal iyagoo beerta qodanaya, xooluhu way iska guuri jireen, beertiina dad baa u hadhaya, xoolihiina dad baa u raacaya. marka markii la isku hayn kari waayo, laakiin in maaragtay dadkii xoolihii xogaa xoolaala ay helaan, kadib meel fadhiistaan, beertiina qodaan, nidaam saasoo resettlement wax la yidhaahdo. weli ma ka jiraa aragtidii? weli ma jirtaa nidaamkaasi? nidaamku wuu jiraa. nidaamku nidaam ahaan awal lagu jiray, haddana wuu sii xoogeystay. haddana waxaan soo initiative waxaan waayaan wadnay la yidhaahdo dhaqa oo dheefso iyo dalag iyo daryeel oo labadaba lagu xoojinayo, midna xagga dalagga beeraha, midna lagu xoojinayo xagga xoolaha. marka xoolihii laftoodii qaab casri in loo dhaqdo oo deganaanshuhu uu ku bato, laysku daya in biyo xooluhu inta badan daaq iyo biyay raadsadaan. waxay u socdaan ma aha wanaag iyo khayr kale ma. hadday ka maarmayaan, Soomaalidu waxay hore ugu mahmaahay socod raaxa ma. socodkan marka dadkana dan uma ah, xoolahana dan uma ah, laakiin dan baa ku qabata inuu guuro oo mobilityga nidaamka la yidhaahdo ama geediga, dee inuu baad doonto, biyo doonto, cudur iyo wax meelaha hadday ka dhashaan ka cararo, meel kale oo ka cudur yar oo ka nadiifsan tago, unbaa dadka ku kalifaysa. laakiin haddii ay intaa meel ku haystaan, kama tageen meeshoodii. marka in biyana ay helaan, meelalka qaarkood calafka laftiisii, xoolaha qaarkood, xoolaha beertan lafteeda balkeeda
aan la dayicina la kaydiyo oo nidaam casri inta loo kaydiyo xoolihii la siiyo waqtiga ay cawskii iyo daaqii kale ee caadiga u yaraado laga faa'iidaysto ama neefka irmaanka ah xoolaha caanaha leh ama kala naaxinayo ay helaan fursad ay ku helaan marka wuu jiraa nidaamku nidaam hirgashan weeye dadkii xoolaha dhaqan jiray xoolaha walba way haysteen inay haddana beer ku daraan xoolaha walba way haysteen laakiin intay beer ku daraan inuu marka saldhig deganaanshuhu uu kordho oo mobilitygii ama geedigii uu yaraado biyihiina waxaaba bilowday hadda dee nidaam waxaa laisku dayaa macni dowlad ahaan in dadka biyo loo helo meel hebla ceelka qod xalkan barkad ka qod xaggan maxaa ka suroobaya xaggan maxaa ka suroobaya markaa socodkii wuu yaraaday ta kale dadka laftiisii dhaqaalahoodii iyo xadaaradoodii iyo waxbaa iska yar kordhay booyad bay dalbanayaan meel cidlu iska degan yahay intuu biyo meel fog u doonan lahaa waxaa imanaysaa in ama dowladda loo u dhaamiso xafiiska la yidhaahdo waxaa jira xafiis la yidhahdo DRM disaster risk management ama yaraynta khataraha biyo dhaan meeshooda loogu geeyo marka socodkii guud ahaan wuu yaraanaya marka nidaamkan xoolo dhaqato beeraleydu aad buu u hirgalay wuuna socdaa maxaa la yidhaahdaa waxaa yaraaday geedgeedigii iyo socodkii baa yaraaday daaqii laftiisii waxaa la sameeyaa hadda in daaq la beero la kaydiyo xafiiska xoolaha iyo hay-ado iyo way sameeyaan inta la kaydiyo la xidho meel baa la dhigi waxaa la yidhahda laga yaaba in la yidhahdo gobol hebel waxoogaa waxaa ka yar jira abaar baa jirta saasoo kale in marka 20 taraagox leh deegaanka beerey deegaanka waxaa ka jira dadaallo badan oo dhanka biyo qabatinka ah ama ceelal la qodi ha ahaato waxna aad u xustaa ceelal qodista ayaa aad uga socotay deegaanka waxaa jira bir dhaweyd la sameeyey deegaan dhaamka guday ayaan isaguna xusuustaa maxay ka bedeleen dadaaladaas hab nololeedkii xoolo dhaqatada Soomaalida iyo beeraleydaba biyaha horta laba qaabun baa lagu helaa biyaha waa biyaha roobka marka ama underground waterkii oo ceelal in la qoda meeshii ceel laga helayo ceelasha mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dhulka qaarkii 600 700 kun mitir inaan biyo laga helin baa laga yaabaa kilomitir hoos loo qoday meelaha saasoo kale waxaa xoogga la saaraa dhaamamka la sameeyo meelaha biyuhu ay ka dhow yihiin ceelal in la qodo marka taas waa nidaam socda oo maaragtay maxaa la yidhaahdaa dowlad ahaan iyo hay-adaha iyo shacabka laftiisa in badan isku tashi xataa ay sameeyaan baa jira waa la qodaa dhinaca biyaha waxyaabaha ugu adag weeyaan waxaan idhaahnaa water jira gobollo hadda ka hor aan xasuusto iyagoo abaar ahaa ama dhul xoogaa yarad saxare xigeen ahaa oo aan malaynayaa haddaan khaldanayn gobolka City berigii hore loo oran jiray hadda waxa laga yaabaa dowladda qaar magacadooda inay isbedeleen inay isbedelshay oo dhul green ah dhul cagaar isu bedeleen oo doog ah ceelal barka badan oo gobolka City wuxuu leeyahay biyahan dhulka hoostiisa baa Ilaahay aad ugu manaystay waa meesha Djibouti laga waraabiyo dhulkaana dhul beereed iyo dhul daaqsimeed iyo biyo iska socda jira oo xataa matoor lama saaro waa la qodi marka la duleeliyo biyuhu ilaa joogaaga 2 mitir bay kor isaga soo boodayaan kadib kanaalka baa loo sameeyaa marka wuu jiraa ceelal badan oo saasa jira waa ceelal aad u tiro badan kuwaas oo boqolaal gaadhay oo loogu talagalay dhul badan in lagu waraabiyo waana lagu waraabiyaa meelaha qaarkood daaq ahaan bay isaga waraabsamaan meelaha qaarkoodna waa beeris biyo maxaa la yidhahdaa xaggan wixii meelihii nooca laga waayana dhaam in la sameeyo dhaamo baa la sameeyaa kan hadda goday aad soo qaaday oo kale waa dhaam ma aha laakiin waa diversion waxoogaa waraabkaa loogu talagalay in dhulka lagu waraabiyo beeraha lagu qoto waa webi Shabeelle marka diversion weeye biyaha haddii aan la isticmaalinna webigay ku noqonayaan wixii loogu talagalay ma an yar baa weli laga beerbeeraa aad looguma sii waxaynin dhaam gooni oo la xidho oo biyuhu fadhiistaan maaha waxaa jirta maxamed shariifow dadka Soomaalida weliba sida gaar ah xoolo dhaqatada xilliyada marka ay abaaruhu dhacaan ama isu guurguurka daaq raadiska waxaa dhici jirta in colaado dhex maraan colaado gaarsiisan heer reer miyiga ah mararka qaarkood colaadahaasi inay gaaraan in ay beelo badan isugu gurtaan iyo kulay sida dhulka Soomaalida badankiis ka dhacda waxay teleg bay bedeleen in dadaaladaas hadday noqoto dhanka biyaha iyo hadday noqoto dhanka fidinta daaqa iyo aad iyo aad bay u bedeleen aad iyo aad horta xaggeena hadda ma filayo wax khayraad
la xidhiidha xagga daaqsinta ama biyaha oo la isku haysto la isku dilo ama dad wax isku yeelaan ma jiraan. waxaan nagu soo hadhay waxa la yidhaha magaaliin baa nagu soo hadhay in meel dad iska yar fadhiistaan oo la yidhaahdo maaragtay waxaan ka dhiganaynaa meel tuulo, kuwo kalena ay yidhaahdaan xageed uga dhiganaysaan annagaale iyo annagaale. taas marka ay waxoogaa ka dhacaan, taana waa la mamnuucay, sharci baa laga soo saaray, kabineetka deegaanka uu ka soo saaray in mamnuuc ay tahay deegaamayn wax la yidhahdo inaan la samayn karin. meelo qaarkood baa inta habeenno iyo wax la yar sameeya xataa ciidanku yimaado la dumiyaa, dhulka la dhigaa. marka taa laga tago arrimahan kale ee daaqsinta dhulka waa wadaag, wax daaqsinoo la kala leeyahay ma laha. qofku beer yar hadduu leeyahay oo beertaasina aanay seere ahayn, beere waxaa jira marka qaarkood dadku ay inay xooluhu daaqaan u seeraystaan, lama ogolo kuwa xataa oo daba laga gubaa. waxay daaqsintii waa madax bannaan tahay, biyuhu way madax bannaan yihiin, cidna male. haddaad guurto meel kasta tagto biyaha waa la leedahay ciddaa meesha aad ugu tagto, waayo biyaha intoodii badnayd ama waa ceel gacmeedkii dadku ay iska lahaayeen oo weliba la kala ceshan jirin, ama wax dowladdu samaysa oon cidi kale lahaan karin, meel kastaa laga sameeyey. waxaa kaloo la sameeyaa si looga hortago inuu iska dhac yimaado hadday abaari dhacdo. maamul baa jira dee dhulkii oo gobolaha maamulo gobol baa jira, maamul degmaa jira, xafiiskan kuu sheegaya oo early warning wax la yidhaahdo kasii digayaa jiro, sii ogaanaya markii la ogaado inay meel hebla, degme hebla ama gobol hebel abaar ay kusoo fool leedahay, cabsi jirto, meel heblana ay fiican tahay, dadkaasi inay halkan imanayaan immigration dhaqdhaqaaqoodana la yaqaano. waxaa la sameeyaa labada maamul baa wada hadlaya si loo xakameeyo inaan si looga hortagaba intuuna dadkii teginba, dadkaasaa imanaya, duruufahaasaa jira, soo dhoweeya. dadkii iyagoo guryahoodii lagu soo dhoweynayo oo dadkoodii la joogaan oo maamulkii la socdo oo hadhowto raashinna iyo waxyaaba xataa markay meeshan yimaadaan in lagu caawiyo. marka wax la yidhaahdo xoog waxaa la saaraa dadkan soo barakacay ama barakac dee xilli koobana ha noqdo ama ku xataa kaba dheer ha noqdo, iyo host community waxa la yidhaahdo bulshadan qaabishay heshiisiintooda isdhexgelintooda ayaa laga sii shaqeeyaa intaan weli la gaadhinba. marka waxaan isleeyahay waa farsamooyin aad u fiicanoo maalmaha dhoweydna markaan arkaynay maaragtay kulankeena xan ka dhacayay, calacalada ugu badan in ka hortageedu qayb ka mida noqon karo maamulada jira. tala ahaanna waan usoo jeediyey meesha in maamulada jira ay ka warhayaan oo dadkan dhaqdhaqaaqooda lala socdo, meeshay u guurayaan, meesha roon waxaas, kadibna laga sii hortago. marka waxaan isleeyahay way yaraanayaan wax isku dhacyo oo saas haddii ay taas samaysanto. dhammaan farsamooyinkaas guulaystay waxooda macnaha ugu badan ay sameeyeen waxa weeye inay noloshii dadkii reer xoololeyda ahaa iyo beeraleyda ahaa oo asaaska u ahaa nolosha Soomaalida ay wax ka bedeleen. maxaad is leedahay Soomaaliya dabcan Soomaalidu waa isu warhaysaa, way ka baran karaan farsamooyinkaas maadaama dad la mida oo Soomaaliyeed lagu tijaabiyey. waa si wanaagsan, aad iyo aad. waa horta cilmi baadhis la samaynayo iyo horumar ay dowlad ama hay-ad ay samaynayaan haddii aanay waxba ka bedelin dadka loogu talagalay macno ma laha. dad baa iskaga shaqaystay, wax macno ay keenayaanna ma laha. kolkaan waxaan isleeyahay waxyaabaha aan isleeyahay waa laga baran karaa xaggeenna waxa weeyaan horta qaab dhismeedkii inuu jiro, qaab dhismeedkii cilmi baadhista iyo maxaa la yidhahaa horumar kastoo la samaynayo waa inuu salka ku hayaa cilmi baadhis, waa inuu salka ku hayaa oo la baadho wax. marka structure-kii ama qaab dhismeedkii cilmi baadhiseed iyo kii maxaa la yidhahdaa horumarinta iyo kii bulshada inuu iswada haysto oo wada jiro. maxaa la yidhaahdaa baahidana marka u horeysaba ay ka soo baxdo dadkan bulshada baahidu ka soo baxdo iyaga laga keeno. cilmi baadhista aan samaynayso waa inay ka timaadaa ciddii ka faa'iidaysan lahayd waxan ee loogu talagalay baahidooda waa inay ka timaado. kadib aad wixii cilmi baadhis ku samayso, kadibna ay ciddii khusaysay ee developmentiga samaynaysa aad u gudbiso, iyagu bulshadii gaadhsiiyaan, bulshadu qayb ka noqoto. baahida koowadeedii hore meeshay ka timid waa iyaga, qorshayntii bay dhinac ka noqonayaan, fulintii bay dhinac ka noqonayaan. waxaasi sustainability-giisii qasab weeye inuu hagaago, way ilaalinayaan. haddii laakiin qolo meel socoto uun la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa yaa meeshan timid waxoogaa resistant bulshadiina maxay ka wadaan, maxay yihiin, waxba anaguba kama ogin hadday yidhaahdaan
waxaa la yidhaahdaa inuu wixii hirgala xataa wax wanaagsan isagoo ahaa oo u fiicnaan lahaa sida uu marka iyagu dhinac ka noqdaan hawle qorshaha oo dhan systemka oo dhan ay qayb ka ahaadaan dadku maxaa la yidhaahdaa ceel haddii la qodayo ceelkii waxaa laga yaabaa hadduu wax yar ka xumaado inayna hagaajisanin laakiin hadday iyagu marka horeba la socdaan way hagaajisanayaan way dayactirayaan way ka warranayaan way ilaalinayaan guddi iyaga u samaysan iyagaa wadaya qoftee socdaana waxba badanaa kama tari karo meel fog oo mar wax ka qabtay waxaa wax ka tari kara cidda joogta ee ka faa'iidaysanaysa markaan waxaan is leeyahay in nidaamkaasaa la isugu wada xidho nidaamka researchkuna uu jiro annaga hadda researchkan samaynayno sanadkii madal baan qabanaa madashaas bahwadaagtaa isugu keenaa bahwadaagta iyagaa odhanaya marka waxaasaanu u baahannahay noo baadhitaan noogu sameeya laakiin researcherka keliya iyo inuu isagu iska hindiso kama ogolaano xataa researcheradii inay iyagu iska hindisaan mararka qaarkood wuu keeni karaa wax fiican fikrada laakiin inta badan waxaan yaalla waa ina ka yimaadaan marka taas baadhitaan lagu sameeyo kadib sidaa lagu sameeyo maxay tahay fariinta aad u diri lahayd soomaalida ku howlan xoolaha iyo beeraha meel kastoo ay ka joogaan dhulka soomaalida marka loo eego waaya aragnimadaada cilmi baarista iyo aad ku salaysid dhaqanka habdhaqan nololeedka saxda ah ee soomaalida ku maarayso nolosha xoolaha iyo beeraha aad iyo aad u wanaagsan tahay horta waxaan ku talin lahaa ilaahay subxaana wa tacaala kownka markuu abuuray bini aadamka ku dhex abuuray cid walba meel buu dejiyey dadkan soomaalida meeshaas u dejiyey geeska afrika la yidhaahdo ayuu dejiyey maxaa la yidhaahdaa cid walba meesha ay joogto khayraad ku aada noloshooda ayuu u dhex dhigay soomaalida marka khayraadka ay haystaan waa dhul ay dhex joogaan xoolo iyo dhir iyo caro iyo maxaa la yidhaahdaa wixii ka soo bixi kara ee kale dalagaha lagu beerto meel kastoo geed uu ka soo baxo geed beer bay noqon kartaa sababta beertu waa geed meel kastoo geed ka soo baxana neef xoolaa ku noolaan kara marka dhulkeenu u wada suubadaa labadaas laakiin waxaa muhiima seen u maaraynaa maaraynta muhiima maaraynta marka dadkeennii hore sibay wax u soo maarayn jireen marka yaynaan noqonin dacawadii tallaabadeediina ka tagtay tii nebigana gaari weyday yaynaan noqonine nolosha aynu leenahay waa taas aan horumarinteeda aan ka shaqayno cilmi baadhis ha la sameeyo horumarin ha loo sameeyo nidaam degan ha loo sameeyo sida ugu fiican ay ku suuroobayso ha loo sameeyo maxaa la yidhaahdaa nidaamkaas inaynu horta aaminno inuu yahay nidaamkeenni haddaad laakiin aaminto waxaad adigu leedahay waan ku habsaamay ama dib baan u dhacay oo kii xoolaha la joogayna uu tuulooyinka taagnaado uu dhaqaalayn waayo sidii hore xoolaha iyo dhulkuba waa kuwii laakiin waxa isbedelka ku imanaya waa bini aadamka iyo habka wuxu maamulayo markaan waxaan dhihi lahaa bini aadamnimadeennaas iyo meeshaan ku noolnahay iyo dhaqankeenna aan aaminno bini aadamkan cidba waxbay ku faa'iidaa wixii marka cusub ee kaa cusub ee bini aadamka kale aad ka soo hesho ku darso kaad haysatay horumarin iyo wanaag ku samee marka waxaan dhihi lahaa aynu nolosheenna kow aaminkaasa ugu horeeya waxa dambana inaan marka aaminkiina dee sidii dadkii horeba ay mar walba usii wanaajin jireen qaabka ay u dhaqmayaan aqoontu inay noo tarto inaan kusii hagaajinno ayaan ku talin lahaa aad ba umahadsantay waxaa jirta dhulkan soomaalida anu deegaanka dowlad deegaanka arrintaas war uma hayo laakiin waxaa jira in dhirta la gubo si looga sameeyo dhuxul arrintaas dowlad deegaanka yacni ma ka jirtaa arrintaa gubista dhirta ah mase qaab noocaysa loo maareeya cudur guud oo soomaaliya qabto weeyaan ka jiraa xaggeena uu ka jiraa marar badan khilaafaadka marka dhaweyta waxaan idhi waxaa laisku khilaafaa inta badan waa magaalayn dhuxulaysiguna waa ka mid marar badan buu dagaalo keenaa dhuxulaysigu marka wuu jiraa ha lagu kala duwanaado dhul aan la taabanin baa jira laakiin meelo waxaa jira uu ka socdo arrimahaas marka horta dabcan waa dembi waana dagaal baa ka socda ciidamaa jira waa la ilaaliyaa waa la daba socdaa laakiin sida khaladaadka oo dhani ay isaga dhex socdaan iyadoo sharci ahayn wuu iska jira haddana wax dhex socdaa
laakiin inta badan xafiis baa loo sameeyey ilaalinta deegaanka iyo maaraynta dhulka miyiga la yidhaahdaa jira ayaan leenahay xafiiskaasi waxyaabuhu ka qabto shaqooyinkaas ka mid ah xafiiska beeraha kale ilaalinta xagga maaragtay dhulka ilaalintiisa markii heer degmo la gaadho hoos loo dhaadhaco iyo tuulooyinka marka dagaal baa lagula jiraa laakiin dhibaato jirta weeye waxaa la rabaa marka hadda in yani dadka laftiisii qaar baa dhaqaale ka helaya meesha yaa ka dayey qaarna kuwii magaalooyinka joogay laftoodii baa shidanaya oo ninkii waa inay iyaguna helaan wax kale oo ka bedelan oo shitaan oo gaaskii systemkii gaaska loo abuuro maxaa la yidhahdaa xataa haabada wax yaroo tashiila stofyo ama baxalan shooladiyo waxaan oo tashiila la helo waxaasaa lala daala dhacaa dhibaato jirta weeye dhibaatadaana dagaalkeedu iska socdaa weli dhulkii wuu iska roon yahay laakiin culays badan baa ku socda marka taana haddii alla idmo shuruucna waa laga soo saaray oo bayaanaa jira oo baarlamaanka la baasgareeyey oo lagula dagaalamo haddana baxsadka iyo fakadka iyo waxaas lama waayo marka tan kale geedkan hadda la yidhaha brosobaska ama garanwaaga aan u naqaanoo kale in dhuxul laga dhigo oo isagana dhinac lagu tirtiro dhinac kalena alternative ama wax bedel oo noqdo laga manaafacadsada isagana meelo badan ka bilowday marka waxyaabahaas aduu lagula daala dhacaa laakiin dhibaatadu way jirtaa aad baad u mahadsan tahay